adduunka kama shaqeyso waa sida ay rabeen laascaana markii la qabsan hayay SSC la qabsan hayay Puntland iyo Somaliland heshiis ay ku yihiin oo Ethiopia ay la hoos galeen oo inay kala qaybsadaan baa lagu heshiiyay iyagoo oo jooga oo indhoodu shan yihiin baana la qabsaday maamul ahaana Puntland way tirsan hayaan oo inay iyaga ka mid yihiin bay tirsan hayaan dhulkoodina idoor bay kula heshiiyeen taas way isu kay qaban laadahay war idoor qayb qaat alla qayb baan qaadan xaga baarlamaanka kaga qaadan aduguna xaga ka qaado iyaguna dhexdeena ku dhinteen mashaariicda qayb baan qaadan aduguna qayb qaado waxba igu yeeyna arkin waa macnaha xaasil la yaafah hadday ku doodahayaan oo ilayeen dhalasha annaga isxigna oo nimankaas waa niman harti oo daarooda dhulkooda marka la qabsanayna ku dagaalamaan baahay ma ayna yeelin sidana sheegay macnuhu oo in akhriya dunay u dhaxayaan maxaa diidahaya in ay inta ku dagaalamaan dhulmaanta isaga inuu ku dagaalamo diyaar u ahay dhulkiisa ay xorayaan oo Puntland ku daraan maxaa diidahay waxa diidahayay anu hadalka kama gabado Puntland ma rabin in dhul bahanta dhamaantii uu noqdo Puntland ma ayna rabin sababtoo ah waxay u arkayeen khatar ku soo korodhay oo maamulku ku qabsanaysa oo iyaga trade ku ah siyaasadda waxa la yiraahdo waday leedahay wadadeeda haddaad garab martana failure baad noqonaysaa wadadeeda haddaad qaadana waad ku guulaysanaysaa macnaha reer Puntland waxay sheegtaa siyaasadda inay siyaasiyiin yihiin oo siyaasadda Soomaaliya ay hogaamiyaan taasuna waxba kama jiro because maanta taagan baa timid saddex qodob oo siyaasiyiin ayna Puntland ku ahayn baa la caddeynaya keeska Afrika markaad joogto ama caalamka aad joogto wadanka Mareykanka dadka haysta madaxda ka noqda nin madow ah oo Obama la yiraahdo markii laga reebo waa dad Irish waa dadkii qabsaday qaarada Ameerika ee Christopher Columbus baa helay iyaga madax ka noqda iyaga majority ka iyaga lead gareeya Irish ku kama kaftamo madaxweynaha wadanka Mareykanka Ingiriiska wadan kasto caalamka waa sida Afrika marka aynu inagu joogno qabiil siyaasadda Afrika kama maaranto kii hartiga ila ahaa banacada u loogahayaa kii daaroodka ila ahaa baan xiriirka u jarhayaa dawladda aan ka tirsanaa ee Soomaaliya baan xiriirka u jarhayaa taasu siyaasaddu sida uma shaqeyso waa qodob saddex qodob waxa weeye harti bay miskareeyeen oo dhalashahan u xigay daarood bay miskareeyeen oo dhalashahan u xigay Soomaali oo dawladda ay ka mid ka ahaayeen ay sheeganayeen way miskareeyeen siyaasiyiin ma aha marka saddexda qodob baa diidahay dawlad kasta oo timaada oo Soomaaliya reer Puntland way calaysan yihiin waxay calaysan yihiin lama garanayo dawladdii ka mid baan nahay bay leeyihiin koronow guuxa iyo ololka kala daa SS nimanka la yiraahdo Puntland halkaasaan dhigay SSC nimanka la yiraahdo firdhiye waxa loogu calaysnaa maamulkaagu daarood baan isku nahay harti baan nahay ha aadin dawladda Soomaaliya ha leeshiin dawladda Soomaaliya ha leeshiin shakhsi kasta media haduu joogo iyo siyaasi kasta in Umar Galuul la kulmay dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaarihi buu la kulmay buu ahaa kayskood laba aynu kala saaro maamul SSC la yiraahdo keeltira geela waana wada jirtaa waana kala jirtaa SSC danteedu meesha ay ku jirto iyo dawladda ay u dagaalamaysa iyo calanka ay ku suntanayd iyo midnimada Soomaaliyeed ee u soo dagaalameen ee diyaaradaha loogu weeraray
bay iyagu u dagaalamayeen oo raadinayeen Soomaalida ay u dagaalamayeen hawo imanina hadii la yiraahdo ka waran marka shalay dhalashay igumaadan wax igumaada qabanaynin shalay kabla laxna waan kula ahartina waan kula ahaa 6 wiil iyo 6 gabdhood inay godka galaana adaa sabab u ahaa maantana waxaad leedahay dawladda Soomaaliya maxaad u aadaysaa daarood baan isku nahay iyo kabla la ciyaartay warday ragga waxa weeye waxaan lagu dayn baa jira SSC dantii ay lahayd way gaadhay oo inay maamul buuxa noqoto oo inay dispute area ka baxdo oo aynan qolana u yeedhinin kumayaal ba godka u galay kumayaal curyaano oo maanta soo dhaweynay ra'iisul wasaaraha oo gabdhi iyo wiilal isugu jira baa xabado jirkooda u googoysay kumayaal hooyooyin baa u gablamay taana halkaas dhigay أنا ندارو هاي SSC يديسبيوت إنه يهاتو يعادو إنه السؤال أنا قاعد بي واحد وعقلي السليم كامركو طالين هايو ونيجو مركو طالين هايو ومسكحة فيه مركا يطالين هايسو وأنا لشان الشيء هاي مركا يطالين هايسو لكن أنا أو سياسة الصومالية وحكرها ما بلك SSC دارود يبلن مفائده وياه مس خسارة فائده وياه حكت أنا هيو أحمد مدولي عبد الولي قاسمي مدحوينها يا يري صدق معموله دارود لا تقنو SSC وخاتمة صول يسناق يا عين أنو مامل كدقنا بدلنا مامل كدقنا شو بلنا لا تقنو عبد الولي قاس فدق ووقعي سياسي والبؤري بدلنا لو نوع استاغيه waxaan arkahayay reer garowe makarafoonka la dhex maray riyadu way iska dhamaanaysaa qof walba wuxuu leeyahay anaga inaga mid yahay xamsana ma iman karo fikirka dada misin siyaasiyiinta kale inuu yahay waa badan yahay aad waa badan yahay arudib kuma qabo دارودنا فايدة وتاي بدلنا فايدة وتاي وهدي عقلي وشقيني وهدي عقلي مسكح أنا حاسس إني ما كتشرين أي شقيني سو وهاي وتاي دارود شرف دولة الصومالية بشرف وتاي عيد والبقى عالم كالصومالية تشعل بشرف وتاي وحنا الكهيي سياسيين لو رئيسان هيو وربنا نهole متوقع كسمايو كسو تشداي كسماية يجو سياسة بيسكو هي دولة فيدرالكا كسمايو يبشبلان يخاتمنا والله معمول بلورت هلا قرطو اسكو وسط كنا وما لبا معمول دولة فيدرالكا وقال شرا قال وانا وذاك كلا شرتا وانا وذاك شرا سياسة الصومالية يعني والبا ماشي وكا قال هيو معمول كيسا يا واحد انت وايساقا وانا كنت اقرسانا يعني قوني لو قادينا كما حمي dad badan baa isoo qoray dawladdu ma jirto hadayna jirin xitaa waa midii matalayso umada Soomaaliyeed waa mid magaceeda wax lagu soo qaadan hayo waa mid qalanka haysan maanta xasan sheekh wuxuu yahay niga dhacma jira aniga haddana waan aaminsanahay arrimo siyaasadeed oo badan inuu isagu ay ugu jirto oo daarood maadaama uuna haynin maamulka kali ah ee daarood ee uu hayo isaga uu yahay waxyaalo badan oo isaga dantiisa inay ku jirtaan waan aaminsanahay farqaatu bahal baan leeyahay walaalka oon dhiman dhaxal macaana maxaan ka wataa hadalka maxaan ka wataa walaalka oon dhiman dhaxal macaana Jubbaland iyo Puntland way cariiseen banaanka ka joogan riisanka la idinku baahday ma garanaysaa laba qodob idinka oo dhiigiina u daadiyay oo xiniyihiina ku keensaday oo calankii Soomaaliya hoos fadhiya oo dhulkiina xoreystay waa qodob
labadii maamul ee dhalashahaanad wadaagteen oo banaanka jooga oo la idinku baaday labada qodob baa la idinku baaday ka faa'iideysta maxaad uga faa'iideysanaysaan xasan dan buu leeyahay iyo xamsi idinkuna dan baad leediin maxay kala yihiin wax kasta oo idinka dantiina gorgortamo kow waxyaalaha la sameynaya maxaa ka mid a maamul buuxa oo khaatumo waa in la helo qodobka koowaad ee xamse maalinku idiin yimaado uu kaga dhawaaqaya meesha waa inay noqoto waa qodob waxa kale oo dhan mashaariic iyo sheekada dib iyo dhig mashaariicdu waxay yimaadaan hay'aduhu waxay yimaadaan dawladdu waxay timaadaa budget wuxuu yimaadaa qoontayn waxay timaadaa waa maamulku markuu yahay maamul la aqoonsan yahay waa qodobka u horreeya qodobka labaadna wixii mashaariica markaa ka wada hadlo laakiin waa in rigeedii la helo waana aaminsanahay in aad taagantihiin halkaa godob ma aydan gelin Jubbaland iyo Puntland godob kama aydan gelin laakiin waa maamullo daaroodo iyo waxay leeyihiin waxanagii xasan baa ku kaarta baxaya inay leeyihiin rafniyada iska leeyihiin baa laga yaabaa waxa idin ma khusay idinka labada cadhaysan intay banaanka ku maqan yihiin ka daadsada anigu saasaan aaminsanahay ka daadsada maxaa la yidhi nin baan yaaliyo nin bud yaallaa ya soo saa ma ahayn idinkaa matalo oo daarood maanta jooga idinkaa laydiin baahan yahay idinkaa meeshaad istaagtaan lagu khasban yahay dhiilkaa raggii geli lahaa iyo wixii aad dawladda ka faa'iidi lahaydeen waan arkaa dawladdii soomaaliya oo dhan way soo guurtay midnimada iyo guushu soomaalidu ugu sawirta waa taqaanaa ugu sawir ii geeye farmaajo Soomaaliya laascaaray ii geeye maraysaa idinkaa keensaday midnimadiina keensaday dhiigiina keenay nin bina aadamooda baa lagu qabtaan ma jiro shargareeya dadka gaarsiiya baalka idinkaa keensaday waxaad keensateen ee dhiigiina u daadiseen midhihiisii baad guranaysaan labada maamul ee maqan inta cadada ku maqan yihiin ee dawladda isu cadhaysan yihiin xasan waa idinku khasbayo isagaa idiin baahan idinkuna waad u baahantiin meeshaan ka hadlaya ninkii caqli lehna waa garanayaa doqonna yeelkii ka faa'iidaysta intaa taa halkaasaan dhigay maamulkanu yuu faa'iido u yahay yuu dhib ku yahay faa'iido wuxuu yahay daarood faa'iido wuxuu yahay harti faa'iido wuxuu yahay dawladda Soomaaliya faa'iido wuxuu yahay SSC afarta faa'iido halka ay dhig yuu dhib ku yahay maamulka Soomaaliya ninka sheegan haya ee Puntland baan ahayle ee maamulka khaatumo ka soo horjeeda faa'iido u yahay laakiin ma garan hayo laakiin isagu wuxuu arkaa inay dhib u tahay laakiin isagu wuxuu hayaa uu arkaa Puntland in la kala gooyay laakiin faa'iido u yahay garab uu ka heri bari hadday baarlamaan noqoto hadday hiil noqoto garabka uu leeyahay kureysha boqor oo gaadho tiknika oo ay ka daadsadeen idorran bay haystaan 12 jir wiilka dhulmaanta maanku gaadho qorigiisa waa la galay hal shakhsi oo qori haysan dhulmaanta bala qola saaka Soomaali ah oo ka badan oo ka military ahaan ka awood badan khaatumo ma jirto ciddu doori ma ahaado ama Jubbaland ama Puntland ama Galmudug ama Hirshabeelle ama Koonfur Galbeed ma jiro 10,000 oo wiil oo saaka barduraalku